laba su'aal oo aad fudaar waa inaan ku weydiiyo diyaar ma tahay diyaar baa soo daa su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waad aroosatay gabar aroostay gabadhii uurka ugu horeeyay ee ku qaado waxay kugu dhashay cunug mucjisadiisa xambaarsan cunug mucjisooyinka lagu arko waxa kamid ahaa wuxuu lahaa 16 farood 6 duleelad 4 suulood marka aragto cunugaaga sidee adi dareenkaaga noqon lahaa cunugama waa dhalin baa oran lahaa waa boodi lahaa okay su'aasha labaad waxay ku leedahay salaad qof aan daahir ahayn ku daba xiran leed ما قف ما حاسوك هاي ضبح ريا واجي استاجل عون إمام إنه يكون نقد قفان داهر إن ما وقلان له هذه ما يكون حتى بقارب مساجد يقولوا كلنا أوكي هذا هو صدق السلام عليكم دمان أصحابتك حرين يوتيوب كنا ولكن بس ما أنتوا حرب أنا دوب فيديو public question وحنا ربع سؤال لبس سؤال وآد وفنيا إنا دوبه وحركة دونا سيدة دتك وقف العليان وحرجينا إنا فيديو ده هراء صوري إنا هذا تكيشين فيديو داس لايك تسوق رحية سيدة كل فيديو أنا وحرجينا مدحي سبضن أو كوي هراء كحي سبضن إنه نقطة وحنا بلنا فيديو قروح بدن يسؤال شدن iyo idinko subscribe soo wala iyo gambaleelkana furta like tana ugu horeen ku soo dhaw walaalka Zama official ku dhawaay adigoo ku bilaabay magacaaga Cabdiqaadir Ismaaciil Maxamed Ibrahim laba su'aal oo aad u fudaar baa inaan ku weydiiyo diyaar ma tahay soo day su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay gabar aroostay gabadha uurka ugu horeysa ee ku qaaday waxay ku dhashay cunug mucjiso leh calaamadaha lagu arko cunug waxa kamid ahaa 16 farood 6 duleelood iyo 4 suulood bal ka warna cunugaas iyo calaamadaha lagu sheegay iyo adii sida dareemileed aad baan u argagaxoon lahaa ilaasin xagga la noqon lahaa tooba aad baan aad baan u naxay lahaa ilaasin xagga agla baan tooba weydiisan lahaa waa ku qaadan lahaa xagga la noqon lahaa waa calaamad ilaahay uu keen waa madid leena okay su'aasha labaad waxay ku leedahay qof aan daahir ahayn salaad ma ku daba tukan leed qof aan daahir salaad ma waajibto lagu dukado ma ku tukan leed ma ku tukan leed ma waajibto qofkaas waa bagal okay aad ugu horeen ku soo dhaw walaalka Zama official ku dhawaay magacayga Axmed Cabdi Jalla Allah ku dhawaay Allah adoo ku bilaabay magacaaga codkaagana kor u qaad Axmed Cabdi Jalla magacayga kuma dheer Axmed Cabdi Maxamuud okay su'aasha ugu horeysa laba su'aal arbaa inaan ku weydiiyo diyaar ma tahay diyaar sida su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay gabar aroostay gabadhi marka aroostay niyo urka ugu horeysa ee ku qaaday waxay ku dhashay cunug mucjiso leh cunuga calaamadaha lagu arko waxa kamid ahaa wuxuu yeeshay 16 farood 4 suul iyo 6 duleelood ka waran cunugaas markii lagu dhalo maxaa dareemi lahayd calaamadaha lagu sheegana ka waran dareemi lahaa murugo aad u weyn ee calaamadaasna ka waran calaamadaas oo laakiin calaamadaha markii aan maqlab ani murugo dareemo laakiin ka waran horta wiligaa calaamadaas wax la camal ma aragtay weligay inta adduun aan nool ilaa dadka weligay soo joogo ilaa weligay calaamad ma arkin waxaas okay su'aal labaad arbaa inaan ku weydiiyo diyaar su'aasha labaad waxay u dhacaysaa qof aan daahir ahayn salaad ma ku daba tukan leed qof adar ugu tukan qof daahir tadaalada najaaso dhigayay هذا محوكا ديغا ادو داير واي مانو ايوا غاميس نجاسي قوان انا دو هذو نجاسينا داير دوين هذا ما ستاي ugu horeen ku soo dhaw walaalka Zama official waan ku dhawahay walaalka Zama official adigoo ku bilaabay magacaaga magacayga Allah Maxamed Ali Ibrahim laba su'aal oo aad u fudaar baa inaan ku weydiiyo diyaar ma tahay diyaar waan u ahay inaan ka jawaabo okay su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay gabar aroostay gabadhi marka aroostay ugu horeen uurka ugu horeysa ee ku yeelatay waxa lagu arkay cunuga markay ku dhashay cunugiya waxa lagu arkay calaamado mucjiso calaamadii waxa kamid ahaa lagu arkay 16 farood 4 suul iyo 6 duleelood bal ka waran isla markii cunugaas aragtid falcelinta ka bixin leed iyo calaamadaas lagu sheegay wallahi horta waxay noqon kartaa calaamadahaas mid waxay noqon kartaa qudra ilaahay mid kalena waxa la karaa abiis ba dul lahayn kulay meeshu ku keenaya og okay su'aasha labaad ee ku weydiinaa waxay tahay salaad qof aan daahir ahayn ku daba tukan leed wallahi salaada qofku haduusan daahireen kulay asi kuma sheegin laakiin qiyaastaada dhinaca ka mari leedo waa tukan lahayd kadib waa iska tashan lahayd haduu ku dhaw maxaa ilan waxa dhigi lahayd adba in daahir tahay in kale aan kuma ogiyaysan ku garab tukana hadi macna qof aan daahir ahayn salaad ku daba tukan leen adiga qof haduusan daahireen kuma daba tukan leen saasan xaqiiqsanaayeen okay aad u maasantahay walaalkay ugu horeen ku soo dhaw walaalka Zama official waa ku dhawaa saaxib adigoo ku bilaabay magacaaga Maxamed Xasan laba su'aal aad u fudaar baa inaan ku weydiiyo diyaar ma tahay
su-aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxaa aroostay gabadha uurka ugu horreysay ku qaaday waxay ku dhashay wiil mucjiso leh calaamadaha cunuga lagu arko waxaa ka mid ahaa wuxuu yeeshay 16 furood 4 suul iyo 6 duleelood marka aragto cunugaas adi maxaa dareemi lahayd calaamadaas lagu sheegana ka waran calaamadaas lagu sheegay horta waa calaamad mucjiso leh marka haddii saas ay tahayna marka ilaahay saas u gal Soomahan siisa ku aasal lahay aniga oo ku qaadan leed cunugaas haa maxaa ilaahay soo unta waay okay su'aasha labaad waxay ku leedahay qof aan daahir een salaad bu gudaha tukan leed qof oo daahir heena waa ku dhow tukan lahay maxaa qofku macnaha wuxuu yahay ma ogid qof wala miya qof yoomiya masaajidka soo gal Soomahan adina ma ogid ku dhow tukan leed waa isku dhow tukanaysaa aada ma satay ugu horeen ku soo dhow walaalka Zama official safiya waa ku dhow adigoo ku bilaabay magacaaga magaceedu waa Abdi Salaad Saakor Wasaayid laba su'aalo aad u fudaar baa inay ku weydiin diyaar ma tahay diyaar waa wajin kartaa su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxa aroostay gabadhii uurka ugu horeysay ee ku qaaday waxay ku dhashay wiil mucjiso leh wiilka calaamadaha lagu arko waxa kamid ahaa wuxuu lahaa 16 farood 6 duloleed iyo 4 suulood cunugaas markay aragtay maxaa dareemi lahayd ilaahay baa ku mahadin lahay laakiin ka waran cunugaas calaamadaha lagu sheegay alaama lagu sheegay kulli ilaahay waxa ilaahay si si ilaahay ugu ku wada lahay soomo ku qaadan lahayd okay su'aasha labaad waxay ku leedahay salaad qof aan daahir ahayn ku daba xiran lahayd waa maya maxaa ma ku xiran lahayd qof aan daahir ahayn soo loo harna ma ku xiran lahayd sama okay aad ma satay ugu horeen ku soo dhow walaalka Zama official waan ku dhawahay walaal adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Cali Xuseen Cumar Ilkaas kuma hadhar Ilkaas laba su'aalo aad u fudaar baa inay ku weydiin diyaar mu tahay waa diyaar waan soo dhaweynaa su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay gabadha aroostay gabadhii markii ugu horeysay aroostay uurkii ugu horeeyay ku qaaday waxay ku dhashay cunug mucjiso leh cunuga mucjisooyinka u lahaa waxa kamid ahaa wuxuu lahaa 16 farood 6 duleelood iyo 4 suul bal ka waran cunuga mucjisooyinka uu leeyahay iyo markii ugu horeysay markay aragtid waxa dareemi lahayd maadaama cunuga ugu horeeyay uu yahay bismillah horta aad waa naxdin aad iyo aad u culus arrin raati wallahi billahi ma mucjiso la yaab la ilno qolada qofta inkastoo ilaahay uu siiyay waa wax la yaab leh horta cunuga am ku qaadan leed misniyo aniga waxaan marbi yaa dhileed hadee kulli ana dhalay ilaahay mucjisiistaana waa iska qaadan lahaa okay su'aasha labaad waxay ku leedahay qof aan daahir ahayn salaad ma ku daba tukan leed hadee san ku weedaa inuu daahir yahay in kala maya adiga waa ogtahay qofka inuu daahir ahayn salaad ma ku daba tukan leed may kuma daba tugteen maxaana hadee qofka daahir ma waahma okay aad ma santahay soo kala ma ugu horeen ku soo dhow walaalka Zama official waa dhawaada adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Cabdifataax Geele Faarax waa dhawaad Zama official oo ku dhawaad laba su'aalo aad u fudaar baa inay ku weydiin diyaar ma tahay diyaar waa su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waa guursatay markaa guursatay xaaskaaga uurka ugu horeeyay ku qaaday waxay ku dhashay cunug mucjiso leh cunuga calaamadaha lagu arko waxa kamid ahaa wuxuu lahaa cunuga 16 farood 6 duloleed oo 4 suulood maxaa sameyn leed markaa cunugaagaas aragtid waxaa sameyn lahaa mucjiso ilaahay uu keenay iyo calaamada ilaahay uu keenay waa loo jeedaa marka wuxuu ilaahay qorna marka waxa ka dhilaana ma jiraan sama waa ku qaadan leed okay su'aasha labaad waxay ku leedahay salaad qof aan daahir ahayn ku daba xiran leed ma loo daba xiran karo maxaana qof aan daahir ahayn loo daba xiran karo salaad inuu uu daahirsan yahay uu isa qabo okay aad ma satay ugu horeen ku soo dhow walaalka Zama official كسمة official waa ku soo dhawahay aadan uma hasantiin waan dhawadiin waan idin dhaway aadan dadka uma hasanyiin laba su'aalo aad adoo ku bilaabay magacaaga magacayga Cabdiraxmaan bisinka Ilaahay bismillaahir rahmaanir rahiim oo ka hadlay barnaamijka arrimaha diinta Cabdiraxmaan bisinka Ilaahay lagu dhahaa bisinka Ilaahay lagu bilaabo laba su'aalo aad fudaar baa inay ku weydiin diyaar ma tahay diyaar waan ahay weydii su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxa guursatay gabadha uurka ugu horeeyay ku qaada waxay ku dhashay cunug mucjiso leh calaamadaha cunug lagu arko waxa kamid ahaa 16 farood 6 duleelood iyo 4 suulood bal ka waran cunugaas markaa aragtid adii dareenkaaga soo noqon lahaa dareenkaygu wuxuu noqon lahaa wax kasta abuurista xaq ilaahay ku saabsan tahay abuurisan ilaahay baa abuuray waxaas farahan ilaahay baa abuuray maxaa uu kulli shay cindu bimiqdaarin way qadar rabban ilaahay baa haya waanu suurtoobay waanu suurtagalayaan waa ku qaadan leed adii waa ku qaadan lahaa waa ku qaadan leed waa ku qaadan lahaa okay su'aasha labaad waxay ku leedahay
salaad qof aan daahir ahayn maku daba xiran leed salaad qof aan daahir maku daba xiran waayo in la yuhibbu tawaabiin yuhibbu tadahirun yiri qofku waa inuu isdaahiriya qalbigiisa khaalis ka dhiga meeshiisana daahir ahaataa wax walbana daahir ahaadaan makaanku ku dukanaya ee masjidku ku dukanaya kulli waa inay daahir ahaadaan marka aad weyse qabin ma lagu dukan karo qof aan daahir ahayn maku daba xiran leed maku daba xiran karto okay walaalkii aad ma santahay ugu horeen ku soo dhaw walaalka Zamo official ku soo dhawaay adigoo ku bilaabay magacaaga cabdi jaamac ducaale ilaahi laba su'aalo aad u fududaa rabaa inuu ku weydiiyo diyaar mu tahay diyaar su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay gabadhaad aroostay markaad gabadh aroostay gabadhii ugu horeen uurka ugu horeeyay ku qaaday cunugii ay kugu dhashay wuxuu noqday cunug mucjiso ah oo calaamado dad kale uusan lahayn lagu arkay calaamadaha waxaa ka mid ah cunugii waxaa lagu arkay 16 farood 6 duleelood iyo 4 suul marka aragtay cunuga falcelinta ugu horeysa ka muujin lahayd maxay tahay iyo bal ka waran dareenkaaga marka cunugaagaas aragtid inna ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahi ma aragtay ilaahi baan ka magagalay cunug oo leh oo mucjisooyin gooniya leh ilaahi baan horta ka magan galay mucjisooyinkan camal cunug leh cunug leh waxa weeye wax ilaahay keenay way ilaahi wax walba wuu awoodaa marka waxa weeye inaan inna ilaahi wa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun mooye wax aynu kala aynu ka dhahayno ma jirto cunugaagaasna waa qaadan lahayd cunugayga waa qaadan lahaa cunugayga xagee uga tagaa ما شاء الله سؤال labaad ee ku weydiinaya waxay tahay salaad qof aan daahir ahayn ma ku daba tukan lahayd ma kuma daba tukadeen maxaa daahir ba ma aha salaad horta marka ugu horeyso waa inaad soo daahirsaa salaad ma ansaxayso hadaadan daahir ahayn marka sidaa darteed kuma daba tukan lahayd kuma daba tukadeen okay aad ma santahay ugu horeen ku soo dhaw walaalka Zamo official shukran jazakumullahu khair okay laba su'aal adoo ku bilaaba horta magacaaga Yusuf Abu Bakar laba su'aal aad fudaar baa inay ku weydiiyo diyaar ma tahay okay su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay gabar aroostay gabadhii cunug ugu horeysay ama uurka ugu horeeyay ku qaaday wuxuu noqday cunug mucjiso leh kaamirada yara fiiri waxa lagu arkaa calaamado cunuga ah aan dadka lagu arki jirin waxa kamid ah calaamadaha wuxuu yeeshay 16 farood 6 duloolood iyo 4 suul marka ka waran cunugaasi marka aragtay maxaa sameyn leed mwanzo haya ni mambo ya Mungu kuna mengine Mwenyezi Mungu hujalia mtoto akizawa kuna vidole zingine kutoka au wengine kutoka maguu mawili na vijaa sasa wewe lazima ushukuru kama mzalo mtoto wako shukuru Mungu ndio khairi itakuja dhammaan asxaabta ku xiran YouTube keena waxa rajeenaa inaad videogan ka hesheen balse ay weydiinaysan jawaabaha waxay noqon lahaayeen waxaan rajeenaa dadkii daawaday videogan dhamaadkiisa ilaa iyo bilowgiisa qaar idin kamid ah inay fahmeen qaarna inaysan fahmin idinka jawaabo horta cunuga mucjisada lagu sheegayo wax mucjiso ah la dhahayo maba jirto waxa ay sheegaa waa wax sax ah qof walbo bil aadan ah uu qabo 16 farood suulashaada horta faraha kugu yaalo dhan waa 20 ka saar suulasha 16 ay noqonayaan afarta soo harta waa suulasha sidaas ay ku baxday midaas 6 duleeloodna waxay noqonayaan ugu horeen sanka labadiisa duleel afka iyo labada dhag iyo meesha kale aynu ka saxarno inta waaye 6 duleelood waxa rajeenayaa su'aashaas inaad ka hesheen inaad fahanteen su'aasha kale ahayd qof daahir ee salaad ma ku daba tukan leed ani ahaanteyda maxaa yeelay qofka ku daba tukanaya sidoo kale wuxuu noqon karaa imaam Cabdiraxmaan imaam Maxamed imaam Cabdullaahi imaam Jaamac sidaas oo kale marka waa ka dadkan waxay u fikirayaan si adag hadaa isdajisid waxa laga yaabaa sida ugu saxsan inaa heli leed balse waxa idin leeyahay oo ku baasintiin dhammaan daawashada aad daawateen videogan subscribe tala saaro gambaleelka furashii kuwa kale ka xiisa badan ay ku soo gaaraan sidoo kale share taawo maxaa iiga xisday si dad badan ay ii daawdaan waa ku maasantiin daawashada videogan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh